bismillaah dadka Soomaaliyeed waxaan halkaan idinku soo bandhigayaa podcast lagu magac daray Maandeeq waa wargelin maanka deeqda sheeko wadaag taxanaah oo ku aadan sooyaalkii dadka iyo dadka Soomaalida dadka iyo dalka Soomaalida waa taariikh aan dugsiyada ku soo dhiganay aanu u soo joognay balse podcastigan waxa iskuulkaay soo dubriday idinla wadaagaya aniga oo ah Maxamed Aadan Cali Samawade wadankayagu waxa uu ku soo jiray transition geedi socod muddo aad u dheer meeshii aynu ka nimid aasaaskayagii iyo unkankay ilaa iyo maanta waxaynu soo maraynay xaalad kala duwan wadanka quruxda badan ee geeska Afrika ku yaala ee ay degan yihiin dadka libaaxyada ah ee quruunta ku soo noolaayeen maanta iyo sanadihii ugu dambeeyay waxa ku habsaday belo oo la soo habar wacday sida xeerada salkeedii baa gamcaha lala soo galay shisheeye iyo sokeeyaba loomaba kala harin waaba isugu kayo tageen loona baqayo in berigeeni badeeni hawadeeni dadkeeni in ay maantay hawada ka baxaan oo aynu noqonno qarnigan aynu joogno ee 21aad annaga iyo ka aqoon iyo tabar iyo wax kastaba ka cudud iyo wax kastaba kaga fiican sidaynu soo ahaan jirnay in aynu maanta annagoo daawanayna annagoo faraxsan oo isu sabcinayna oo qolada kale ay u sabcinayso ta kala guul daradeeda in aynu qaaradda dunida ama qaaradda Afrika sidaa aynu uga baxno sidee bay ku dhacday arintaasi maxaa halka ina dhigay taaway arintan doonayo runtiina wax iska weydiiyo taariikhiyan markaad fiirisid geeska Afrika dadka iyagu waxay deganaayeen 100,000 sano ويا الله وباء الحقيقي dadka deganaa ee Soomaalida ahaa iyo sida ay ku soo degeen ilaa iyo maalintay soo degeen aragtiyo kala duwan baa jira laakiin se markaan aqliyan ba fiirino hadii gaalada ra'yigooda ah in Homo sapiens uu ka yimid bariga Afrika inagu hadda taasi waxaynu ahayn dadkii deganaa bariga Afrika oo bini'aadamka dhalashadiisii iyo qeyb ka nahay واسدا ايغو theory-ga ah in modern Homo sapiens inuu ka soo originate garoobay in East Africa balse aragtiyo kale oo waxa jira in dadka Soomaalida maanta ah ay ka yimaadeen meelo kale sida Asia iyo Carabaha iyo wadanka Masar loo yaqaano ra'yigaasi waxa uu leeyahay markaasi dad baa meesha deganaa annagina markaynu nimid waynu barabixinay waa ra'yi aan raajix ahayn laakiin se markaad dib ugu noqotid oo aad fiirisid bini'aadamka inagu waxaynu aaminsanahay oo aan diintayada ayna noo sheegtay inaynu ka nimid Aadam iyo Xawa oo bini'aadamkaba waxay ka wada yimaadeen aabe iyo hooyo kaliyaata marka Aadam caruurtiisii oo aynu naqaano ilaa laga soo gaaro Nabi Nuux waxaan doonayaa inaan ku tuso sida araada kale ay sheegayso oo ah in ubadkii Nuux markii ay dhaceen fatihi weynaa iyo qarqigii gaaladii markaa deganeed meeshaasi lagu kala yaacay dunidii markaasi Nuux waxa uu dhalay caruur Ham iyo Sham iyo Japheth 3 wiil oo noocaas ahaa marka Ham oo Afrika dhinacan bari iyo Afrika soo aaday ayaa waxa uu sii dhalay Cush iyo Puth iyo Mizraim marka Soomaalidu originally waxay ka soo jeedaa Puthkaasi oo Soomaalidu ay ka soo jeedo halka Cush ama dadka Kushitiga ah ee dadka qaraabada nala ah ee isugu jira Oromada iyo Cafarta iyo qolyaha kale Eritrea ee loo yaqaano qeybo bariga Afrika nala degan ay ka wada yimaadeen Cushkaasi oo sida la leeyahay halka Mizraim marka waxa soo dhan leenkaasi oo Nuux oo reer Ham Sham iyo Japheth ayagana Carabaha iyo European-ka ayay sidaas xagga uga farcameen baa leeyahay marka ra'yiga haduu sidaa yahay oo aynu iskuulada ku soo dhiganay soo akhrinay marka waxay noqonaysaa ay ka dhigaysaa taasi dadka iyagu Soomaalida ah
in ay geeska kan ee Africa ama siiba cornerkaasi bathku inay deganaayeen kushkuna in ay iyana maxaan ku raad daris nala ahaayeen oo weligoodba sidaas aanu daris u ahayn luqad iyo ehelnimo iyo qaraawo iyo dhiig dhalasho aynu naga wada dhexiyay sida dadka Oromada iyo Danaakilka iyo Carabta qabaa'iladaasi oo degan iyana geeska Afrika nala degan markaynu dhul ahaan ka hadlayno dadka xoolo dhaqatada ah ee Soomaalida ah ama beeralayda ah ee Soomaalida ah ama magaalada ee urban Soomaaliska ah ee degmooyinka degan taariikh runtii aad u dheer baanu waddankayagii aanu deganayn dhulka aynu deganayna waxa uuba ka bilaabanayaa badda Hindiya badweynta Hindiya ilaa iyo badda cas ilaa iyo daadaga aanu hoos u degno ilaa iyo maxaa la dhihi jiray Ethiopian Highlands dhulka buuraha ah ayaa geeleynu u daaqi jiray weligayo marka aynu dhanka kale u daadegnana oo aynu maxaa la dhihi jiray dhanka Kenyana waa la yaqaanaa Tana River ayuu xadkayaga Soomaaligu ahaa oo webiga Tana River ayaa dadkayaga ilaa iyo hadda ay degan yihiin Warday ilaa iyo Soomaalideenaas ilaa iyo maxaan ku radaa goboladaasi NFD iyo Cielo iyo Marsabit iyo Moyale marka dadka intaasi dhul aan sheegayo ee baaxadiisu inta la eg tahay ee Moyale ilaa iyo isku xiray ilaa iyo Diridhabe waxa ay dadkayagu xoolahooda ayagoo nabdoon oo cadayga wata ayay ku marayeen ay sarcidna ka baqayn aan ka ahayn libaaxa iyo shabeelka iyo waraabaha marka xoolahooda iyo naftooda ugu baqanayeen iyo masaska wadooyinka yaale dadkayagu maadaama ay xoolo dhaqato ahaayeen oo ay looda iyo geela iyo ariga ay caan ku ahaayeen oo ay Soomaal sida ay sheegayso magaca dhanba inuu ku yimid dad xoololey baynu ahayn luqad baa markaa meesha ka samaysantay oo Soomaali ah oo luqadda Soomaaliga ah ama dadka markaa magacay dhulkaba dadka deganna oo ah Soomaaliya waana qoliyaha kaliya ee caalamka ee dhalashadooda luqadooda dhulkooda uu hal kelmad kale yahay waa Soomaaliya luqadana Soomaali marka nimcooyinka ciida ka badan ee Allah subhanahu wa ta'ala uu siiyay oo aynu caalamka kaga duwanahay oo homogeneous community ama hal qabiilka aynu nahay ayaynu ku soo nooleen geeska Afrika oo ciidina aysan nooga daba imaan karayn maxaa yeelay taariikh waxaynu soo marnay oo biri historic ay yiraahdaan gaalada waa inta aan bini aadamka aanu bilaabin inuu wax qoro waxaa jirta waqtigii historyga ama bini aadamka uu bilaabay oo taariikhaha sida Chinese-ka ama Hindida iyo Roman Empires-ka markay yimaadeen ay bilaabeen in maxaan ku raahdaa ay wax qoraaniin ama taariikhdii dheerada Egyptian-ka dadka Masaarida ah ee faraacinta ahaba marqaati kaaga ah faraacintii waxaa la hubaa xiriir toos ah inuu ka dhexeeyo dadka Soomaaliya ee Soomaaliya degan waqooyi bari Soomaaliya fooxa iyo uduga iyo maxaan ku rabeeyadaasi in ay u imaan jireen oo ganacsi la sameyn jireen dadka yaga wax taariikh ma doonto weeyaan oo qoran mararka qaarkood bay dadka qaarkood ee cadawga ku ah dadka Soomaaliya jiritaankooda waxay dood geliyaan in aynuba ahayn dadkii Frankenstein iyo Merth iyo Spiceski dhulka loo imaan jiray in ay Soomaalida ahaayeen bay xitaa noo diidaan laakiin waa taariikh aan la qarin karahayn oo meel kastaba ku qoran tahay faraacintii xistabshuurkii boqorada ahayd ee maxaan ku raahdaa faraacinta ka mid ahayd dadkaasoo dhan baa imaan jiray oo ay dhulkii ilaahiyada noogu magac dareen Land of Punt waa wax aynu ku caannahay oo runtii nala yaqaan waxa u gaara gobolka kaliya ma ahane waxa laga hadlayo waxay tahay min Obakh ilaa iyo Saylac ilaa iyo Raas Kamboni ilaa iyo Raas Caseer ilaa iyo laga gaarayo Lamu waxaasoo dhan dhulkaasi sidaasuu mid kaliya waxa maxaa yeelay xuduudo ma jirin xuduudka kala qeybiyaa ma jirin ilaa iyo waqti dambe oo qarni hadda laga joogo iman doona haddaad fiirisid maabka dadka iyagu waxa ay ahaayeen diiqyadii
libaaxyadii dhulkaasoo dhan ka talin jiray ee aysan ciidina ka daba hadli karahayn. arrintuna waxa ayba ka sii wacnaatay markii islaamka uu yimid qarnigii 7aad, sida aynu ka dheregsannahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii lagu dhibay magaalada maka oo reer quraashka uu ka dhashay aadka u dhibeen. waa tii saxaabada qaarkood uu usoo fasaxay inay usoo haajiraan dhulka abasiina loo yaqaano ee xabashida, halkaasoo uu deganaa najaashi. runtii najaashi nin wuxuu ahaa boqor wanaagsan oo kristaan ah oo diintiisa aad ugu fiican, oo wuxuu haystay ciise masiix injiilkiiba uu ku dhaqmayay. taariikhdaasi waanu ka wada dheregsannahay oo maxaa yeelay iyadii oo dhan baynu diinta inoo sheegtay. muhiimaddeedu waxay tahay markaa in jacfar iyo saxaabadii markaasi timi iyo raadkii ay ku yeesheen iyo islaamka markiis ugu horreeya dooda aynu annaga aadka ugu faannaa waxay tahay islaamka inuuna soo gaaray inta xitaa madiina aanu gaarin. waa wax runtii haddaynu nahay dadka geeska afrika ku nool ee soomaalida iyo boqortooyo iyo maxaan ku radaa civilization dhan oo magaalada harar iyo agaarkeeda ka dhalan doontaay maxaa la dhihi jiray waxay sal u noqon doontaa diinta islaamka ah. waxaa dhashay muslim sultanates oo muslim sultanateskaasoo ifaad loo yaqaano ayaa waxay ka bilaabanaysaa dhulka ee hadda markii adduunka la kala jarjaray waa Ethiopia ayay ka mid tahay ilaa iyo Soomaaliya ilaa iyo Saylac iyo bariga Afrika dhan ama qaybta aynu ka deganahay Horn Africa ayay ka talinaysa iyadoo ah kelmadda laa ilaaha illa allah muxammad rasuulullah ku shaqaynaysa. kadibna waxaynu naqaanaa markii dagaal aan dhammaanayn oo joogto ah ay markasta isku hayeen mamlakooyinkii kale ama sultaanadii kale ee empireka Christian empireka ahaa ay burburiyeen ayaa waxaa samaysmaya haddana awdal oo iyana markaa isla deegaankii ilaa iyo harar ilaa iyo Saylac caasimadana u noqonayso dhulkaasoo dhan ay ka talinayso. marka waxyaalaha runtii laisku qaldaya waxaa ka mid ah oo nalooga faa'iidaysanayana leeyahay annagaa waa deganaan jirnay Hargeysa, annagaa waa deganaan jirnay Saylac oo aanu marna ka harayn ama buwaagta ugu qoran Addis Ababa. waxaa ka mid ah taariikhdaasi dhulku wuxuu ahaa ama dadku waxay ahaayeen dad muslimiin ah. waxa kan la kala jeexjeexay ee xadkan maanta la kala gooyana ma jirin. adduunkoo dhan wuxuu ahaa qaaradda Afrika siiba dhinacaasi geeska Afrika dhan waxay ahaayeen mamlaka hal dowlad bay ahayd ama qabaa'ilo meelo kala degan. markaan timaado muslim empire kan weynaada ifaad ama awdal ama ajuuraan sultanatekii ballaarneed ee iyana Soomaaliya koonfurteeda dhan ka talinaysay iyo sultaanadii kale ee gobolada Soomaalida siiba maxaa la dhihi jiray Warsangeri maxaa la sultanate iyo qabaa'ilo kale oo iyana samaysmay sultaano oo islaami ku salaysan. waxaasoo dhan waxay tusayaan dadka iyagu in ay is-organize gareeyeen, isu talin jireen, in ay ku xiran tahay hadba nin waliba meesha uu riijkiisa gaarayo oo uy ahaayeen dad maamula oo weligood aanan agaarkooda xadkooda loo soo gudbin. marka taariikhda noocaas oo kale waxaan doonayaa oo naftayda aan ugu sheegayaa adna aan kuula wadaagayaa waxay tahay dadka kan iyagii oo boqolaal waa qarnigii waxaan ka hadlaynaa 9aad iyo 10aad iyo 12aad 15aad haddaad fiirisid qabaa'ilada sida maxaan ku ugaasyadoodii iyo maxaan ku sultaanadooda marka loo ay tirsadaaniin oo ay 40 ilaa iyo 50 sultaan ay tirsanayaan. waxaas oo dhan waa wax aynu ku faano aan laakiinse ugu faanayno keliyata marka qabiilkayga sidaan ahaa. muhiimadu taa way ka ballaaran tahay. waxay uga ballaaran tahay waxaan sultaanada waxay ku yimaadeen waxay u taagnaayeen nidaam oo nidaamkaasoo diin ku salaysan ilaa iyo markii dambe oo ajuuraan sultanadekii iyo awdal sultanadekii iyo sultaanadii kale ee maxaan ku rahdaa Soomaaliya gobolada waqooyi bari ilaa iyo koonfurta oo dhammaantood ay jireen oo ay Hiraab empire iyo sultaano ay jireen oo ay Muqdisho ilaa iyo Muqdisho
ilaa iyo Barawe ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo Laamo waxaasoo dhan ay dadkayga influence ku lahaayeen waxaa imaan doonto markaa xilli oo 1884 marka uu dhul ballaarsiga imaan doono oo European-ku ay dhihi doonaan inagu inta naguma filna waa in aynu baxnaa oo aynu soo dhacnaa wadamo badan oo naga baxsan xilliga dhul ballaarsiga ah runtii dadka iyagu waxay ka mid noqdeen dadkii ay musiibada ka qabsatay go'aankii European-ku ay Berlin ku gaareen waxay go'aan ku gaareen in ay soo duulaan oo ayna kala qaybiyaan inta aan European-ku aysan noo imaan masaari oo diin iyo carabnimo iyo walaaltinimo nagu soo gelaysa ayaa waxaa jirtay inay noo yimaadeen tusaale ahaan Masar 1875 ayaa waxay soo degeen oo ay qabsadeen magaalooyinka oo xeebaha ku yaala waa masaarida marka Masar oo kale markay ku timaado dadka yagi qofkan ma muslim ba ha Masar ba kolle waxa dhici karaysa inaysan bacadowba u arkinba laakiin occupation ahaan bay taariikhdu ugu qoran tahay inay noo yimaadeen oo ay nala degeen noona taliyeen hadda markii taa la arkay 1860 yana waxaa dhacday Faransiiska inuu iskaba yimidba oo xeebta magaalada xeebta ee Djibouti iyo agaarkeeda uu iskaba goostay wuxuu yiri anigu qeybtan baaba qaadanaya waa 1860 1887 yana waxaa timid Britain ama waddanka Ingiriiska ayaa isagana qeyb dhanba wuxuu iska goostay gobollo dhan oo ay waqooyi galbeed iyo Togdheer iyo Sool iyo Sanaag qeybo kamid ah ilaa iyo maxaa la dhihi jiray inta Faransiiska ka soo baxsan ee magaalada Looyacade ayuu wuxuu yiraahdaa intaan baan maxaan ku raadaaba qaadanaya waa taariikh u baahan runtii in la darso maalintii ugu horeysay sida cagta ku soo dhigay hadda waqti uma hayo laakiin se dadkii joogay ama sultaanadii joogay dadkii uu la shiray muddo intii loo diidanay inuu cagta soo dhigo iyo taariikhdan dheer ee bilaabanaysa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan maalinta uu ka imaanayo Makka oo wadankiisii lagu cashuuray cashuurta loo qaaday iyo maalinta codada uu ka qaaday iyo go'aanku ka gaaray waxaasoo dhan waa waxaan nahay taariikhdayadii weeyaan waxaasoo idil waa taariikhdayadii 1888 waxaa dhacay heshiis loo yaqaano Anglo-French Agreement Anglo-French Agreement markuu dhacayo wuxuu sameeyaa boundary between Somali positions of the two countries waxay leeyihiin Faransiisku anigu halkaanan leeyahay magaalada ta halkaanan ku ekahay Ingiriiskuna sidaas oo kale waxa la kala qaybsanayo waxa weeyaan waa dhulkii Soomaalida ay deganayd waxa la kala googoorayo waxa weeyaan waa dhulkii Soomaalidu ay deganayd oo uu Faransiiskana qaybta uu la haray Ingiriiskana uu yimid qaybta kan uu qaatay Talyaani baa imaanaya isagana qayb dhan ee koonfurtaas uu qaadanaya dagaal koobaad baa dhacaya dagaal labaad adduunka dhacaya waxaanu ka hadlayno intaan dagaalada la gaarin hadda Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo culimadii dhan baa kici doonta dagaala kici doona waxaasoo dhan taariikh weeyaan u baahan in ilmahayagii iyo dhalinyaradii maanta inay ogaadaaniin marka uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu koofil ku dul gabyayo runtii qof kasta oo aanan hore u maqal waxa quman in uu inta u darso oo uu ogaado taariikhdaasi taariikh badan oo dadkayga aysan qorin ama aysan doonin ama qolaba xaafadeeda uga sheekaysato wixii dhacay tusaale ahaan waa wax loo baahan yahay runtii in la darso Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo nin daarood ah sababta ay keentay in uu maxaan ku raahdaa majeerteen iyo warsangari iyo harti iyo Soomaali qaybo badan oo Soomaalida kamid ah in uu dagaal iyaga dhexdooda ka qarxo doorkii ay ku lahaayeen fargelinta gumaysiga ama Talyaani ha noqdo ama Ingiriis ha noqdo waxaasoo dhan waxa weeye waa taariikh aynu leenahay aynu u baahannahay in si cilmiyeysan aynu ogaano goormaynu ogaanaynaa marka haddii xaafad kastaaba isaga sheekayso wixii ay doonayso marka taariikhahaas ayna soo maray oo dadka iyagii runtii dhaxalsiiyay in ay guumoobaan oo inala addoonaysto oo Talyaani uu yimaado uu nagu dul socdo oo
maxaan kala kanaalada ama keliyada uu dushayda ku dul socdo nala gumaysto hadday noqon lahayd Hargeysa iyo Garowe iyo dhul badan oo Soomaalidu ay degan tahay dagaalkii la foolo kale qabiil kasta meeshii uu deganaa waa difaacday qabiil kasta meesha uu deganaa looma soo dhaafin ilaa yimiduu u dagaalamayay ilaa iyo taako markii dambe nala wada gumaysto wixii intaa ka dambeeyana waxay noqonaysaa taariikh u baahan in aynu hore uga sii soconno marka guraadkii sheekadeeda waxay tahay dadka Soomaalida ee halka qabiilka ee degan cariga bariga Afrika ama geeska Afrika Soomaali kasta meesha uu deganaa waa u difaacday hadday ahaan lahayd Ingiriis iyo hadday ahaan lahayd Talyaani iyo hadday ahaan lahayd Faransiis qof kasta meesha uu deganaa nabad laguma huyan wayna difaaceen ilaa ay kama dambeystii ay isu tageen wayna ka kiciyeen tallaabada xigta aynu qaadi doonaa waxay tahay markii dhalinyaradii ay kaceen oo 1943 oo aad la socotaan oo mar dhow aynu u dabaaldegnay maalintii dhalinyarada ee SYL iyo sida ay ku bilaabanayso dadkii dhan ee waddankoodii deganaa ayaa waxay arkayaan iyadoo la gumaysanayo oo European ay gumaysanayaan oo dabaqada dhexana ay tahay ama maxaa la jiray Hindi oo waddankii ka ganacsata ama Carab oo Carabta iyo Hindidu ay yihiin dabaqada kale ee ku xigta ee Soomaalida waddankii ahayd ka sarreysa oo iyagu ay leeyihiin clubs ama ururo ay isugu iyo meelo ay isugu soo baxaan oo ay leeyihiin organizationno markaas dhalinyarada xoogada markaa noogu aqoon karooneed ama noogu waddaniyadsaneed iyana markaas Somali Youth Club ka samaysanayaan kadibna Somali Youth League uu soo bedelayo iyo wixii ka dambeeyay dhanna ay nala socon marka muhiimadaydu waxay tahay taariikhdaas oo dhan oo wixii ku horeeyay 1960 oo muhiimadda aan doonayo inaan wixii ka dambeeya aanu u guda galno waxaasoo dhani waxa weeyaan waa wax u baahan dadka iyagu in ay darsaan buugaag aynu ka qoranno ama kuwii hore u qornaa aynu ballaarino maadaama ummadaha ay ku kala baxaan wixii qoran ee sajaraysan ee dadku ay la kulmeen in ay diiwaan gashtaan si dadku ay wax uga faa'iidaan maxaa yeelay carruurtaynu dhalnay iyo kuwa ay sii dhali doonaan waxay u baahan yihiin taariikh saxan oo la maxaa la jiray oo evidence oo la xaqiijiyay aanan ahayn la xalaab la kacayo waxay la tiri marka waxaasoo dhan waxaan ku soo ururinayaa maantay in ummadaasi sodcaalkii tirada dheeraa ee quruunta ahaa ay ku soo jirtay ilaa iyo marka dambe ee heeryada gumaysiga ay iska rogtaa iska qaado in 1960kii ay xorriyadeedii heli doonto 1900 Soomaali waa xorowday 60kii